رئيس الوزراء حكومة فدرالka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo ay weheliyaan madaxda dawlad goboleedyada kala ah Puntland, Jubaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle, Galmudug iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ayaa kulan wadajir ah waxay la qaateen wakiilada beesha caalamka ah ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa kulankan ay la yeesheen wakiilada beesha caalamka waxa uu kaga warbixiyay wakiilada ama saaxiibada Soomaaliya heshiiska laga gaaray hanaankii doorashooyinka iyo sida ay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya uga go'an tahay qabsoomida doorasho cadaalad ah oo dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay u siman yihiin. saaxiibada Soomaaliya ee joogay kulankan ayaa waxa ay bogaadiyeen heshiiska hormuudka uu ka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ee laga gaaray arrimaha doorashooyinka dalka iyagoo balan qaaday sida ay uga go'an tahay taageerada dhaqangelinta heshiiska doorashooyinka ah ee la saxiixay. shirka maanta uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa ka qayb galay madaxdii shirka ka qayb gashay ay ugu horeeyaan madaxweynayaashii dawlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir iyo sidoo kale wakiilada beesha caalamka oo dhan Soomaaliya jooga. runtii waxa aad looga hadlay marka ugu horeysa ay beesha caalamku ay hambaliyeysay heshiiskii la gaaray iyo guud ahaan natiijadii ka soo baxday shirkii Khamiistii ee dhamaaday ee ay madaxdu halkan ay ku lahaayeen muddadii toddobaadkii la soo dhaafay. waxa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu sheegay inay hadda diyaar u yihiin iyagoo muwaafaqo inay bilaabayaan hirgelintii heshiiska isla markaana ay kulamo joogto ah yeelan doonaan ayna ka go'an tahay sidii dalka doorasho dhaqsiya loogu qabsan lahaa. waxa uu ka codsaday dhinacooda caalamka in ay garab istaag sameeyaan oo dhinaca dhaqaale iyo farsamo dhinac kastaba ay garab ka siiyaan sidii heshiiskaas loo hirgelin lahaa. wakiilada beesha caalamka iyo madaxdii kale halka ka hadashayba madaxduna waxay ayideen oo ay ka hadleen sidoo kale madaxda dawlad goboleedyada oo dhan hadalkii ra'iisul wasaaraha iyagoo sheegay in ay laga maarmaan tahay taageerada beesha caalamka. wakiiladii beesha caalamka ee hadlay oo ugu horeeyay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Ambassador Iswaan waxay ballan qaadeen in ay gacan ka geysan doonaan geedi socodka. waxa uu sheegay in horeyba ay u qorsheeyeen in qiyaastii ilaa 15 milyan oo dollar ay ugu talagaleen lacagta doorashada laakiin half kamida ama qayb kamida ilaa 7 milyan xitaa horey ay diyaar u ahayd haddana la doonayo in hawshaas la bilaabo. marka way sii socon doonaan dhammaantoodna waxa la isku raacay in doorashadii la dardar geliyo oo ay ugu horeyso qodobadii ugu horeeyay ee la doonayay in la qaato ay kamid ahayd gudiyadii la magacaabayay dhamaystirkoodii oo ra'iisul wasaaruhu muddo gaaban maalmo gudahood uu ku xalinay. maalintii Khamiista ahayd ee toddobaadkii hore taariikhduna ay ku beegneed 27 bishan aynu ku guda jirno ee May ayaa magaalada Muqdisho gaar ahaan teendhada Afisyoon ee Muqdisho waxa ay ku gaareen madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir heshiis kaasi oo ku qotomay jiheynta doorashooyinka dalka kadib markii kulan ay halkaasi ay ku qaateen muddo 5 cisho ah. warmurtiyeedkii laga soo saaray shirkaas ayaa dhinacyada kala duwan ee saamilayda siyaasadda si siman ay u soo dhaweeyeen waxay si codsadeen in si rasmi ah loo dhaqangeliyo. golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo galinkii dambe ee shalay kulan yeesho ay kaga hadlayeen xaaladda Soomaaliya ayaa bogaadiyay heshiiskan waxa ayna dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya ugu baaqeen inay si wadajir ah kaga shaqeeyaan hirgelinta talaabadan loo qaaday dhinaca heshiiska doorashooyinka ayayse ku micneeyeen inay tahay talaabo dhinaca horumarka loo qaaday isla markaana baajisay xasarado siyaasadeed oo dalka mar kale lugaha ula sii gali lahaa. Yuusuf Maxamed Axmed VOS TV.